gudoomiyaha golaha guurtida ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn Abshir Cawil Cabdi Dhiif oo haatan ku sugan wadanka Canada ayaa tacsiid tirayana waxa uu diray eheladii qaraabadii iyo qoysaska koreedeen iyo guud ahaan shacabka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Allah u naxariistay Cabdi Fataax Maxamed Cali iyo Axmed Maxamuud Doolaal oo dhawaan ku geeriyooday qarax ka dhacay Buuhoodle. Allah u naxariistay Cabdi Fataax Maxamed Cali ayaa waxa uu ka mid ahaa golaha guurtida gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Anigoo ka wakiila gudida guurtida gaar ahaan iyo waxgaradka rag iyo dumar ee SCC, waxaan jeclahay halkan inaan ka diro tacsi aad tiiraanye u leh oo aan u gudbinayaa dhammaan qoysaska qaraabada saaxiibada iyo cid kasta oo midnimada ummadda Soomaaliyeed aaminsan halgankana ugu jirta. waxa aanu cambaaraynaynaa cid kasta oo ku lug leh ama ka dambaysa falkan waxashnimada ah ee lagula kacay labada marxuum iyo magaalada Buuhoodleba. waxa aan Ilaahay uga baryayaa labada halgame ee marxuum Cabdulfataax Maxamed Cali oo aanu aad isugu dhoweyn iyo Axmed Maxamuud Doolaal. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa dembi dhaaf iyo jannatul firdaws inuu geeyo. waxaan Ilaahay uga baryaynaa caafimaad sariican ah inta ku dhaawacantay falkan waxashnimada ah. waxaan shacabka SCC ugu baaqaynaa inaanay ka daalin halganka ay ugu jiraan sharaftooda, karaamadooda, midnimadooda iyo horumarkooda. waxa aan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo amniga iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed liddi ku ah. waxaan intaa ku darayaa labada marxuum ee halgamayaasha ah ee gacan ka xaqdarani ay dishay way dhinteen. Ilaahay baana aynu u weydiinaynaa naxariis iyo jannatul firdaws inuu geeyo. waxaase hadhay hadalkii Soomaaliga ahaa, hadalhayntii Soomaaliga ahayd la odhan jiray nin hadhay bay hawle haysaa. nin hadhay bay hawle haysaa. waxa ay hawle haysaa dhalinyarada rag iyo dumar u dhashay gobolada SCC ee nimankaasu halgankay ku jireen iyaga ay ku hadhay inay ka soo baxaan. say uga soo bixi karaan dhalinyaradaasu waxa weeye inay aaminaan qadiyad inay leeyihiin. qadiyad lahaantu waxa weeye qofku inuu qanco, naftiisu ku qanacdo inuu leeyahay wuxuu u halgamo iyo hadaf uu gaadho. waxa hadafka iyo halganka lagu gaadhayaa oo loogu dhimanayaa oo loo gaajoon karaa oo loogu haraadi karaa waxa weeye qofku qadiyadaas inuu aaminsan yahay, una halgamo, kuna talagalo wixii kaga yimaada sida geerida labada nin halgamayaasha oo kale inay dhici karto. waxa ina hor yaala dhalinyaradan la hadlayaa in
la yidhaahdo noqon mayso oo keliya waxaanu ahaan jirnay ama aabbayaashay waxay ahaan jireen ama awowyaashaydu waxay ahaan jireen waxa nin shaacir oo caraba ayaa wuxuu yidhi laysa alfataa man yaquulu kaana abi inama alfataa man yaquulu haa anada af soomaaliya haddii loo bedelo waxa weeye ragga waagii hore dagaalka dee waxaa geli jiray wiilasha ma aha buu yidhi inanku ninka ku faana aabbahay baa waxaa ahaan jiray wiilka runtii waxa weeye ninka yidhaahda aniga waa kan oo ismuuja taasaa giddigeenayna sugaysa iminka wakhtigan jooga dumarkiina kama hadhayaan iyagaaba af iyo adinba ugu halgan fiican oo guuto koowaad la baxay marka aynu wadno waxa aynu aaminsannahay sidii dhulkeenna aynu u xoraysan lahayn uguna talageli lahayn wakhtiga uu qaato inkastaba ha noqotee inaynu diyaar u noqonno waxaa iman kara tan dhimashadan aynu hadal hayna iminka oo ka mid ah mid la mida iman karta waxaa iman kartaa in laysxidhxidho in la kala maxay ahayde dadka la kala qaybiyo in qaar laaluush la siiyo in qaar la bahdalo in qaar la bajo laakiin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsan kara niyad loo hayo halgan la rumaysan yahay oo muddo kasta ha qaatee guul lagu gaadhi karaa waxaan ku soo gebagabaynayaa hadalkayga halgan fiican laascaanoodna libdhi mayso sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ismaan iscaalo dhagjar wararka telefishinka caalamiga Soomaali News magaalada Buuhoodle xarunta gobolka